السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada sharafta mudan ee ku xiran channel kamaan maal soo dhawaada. وحلقة saddexaad aynu ka sameynayno dhiganaheena acjab العجب kitaabun wudica liman la yu'jibuhu العجب yaabka yaabkii waa dhigano loogu talagalay dadka aan ka yaabin waxyaalaha la yaabka leh ee daawasho wacan. dhacdada koobaad aynu ku soo qaadanayno muuqaalkeenani waa aroos yaab badan. arooska ka dhacay magaalada Cleveland ee dalka Mareykanku dhab ahaantii waxa uu ahaa aroos hadal hayn badan dhaliyay. maxaa yeelay aroosku waxa uu ahaa nin indhala, aroosaduna sidoo kale way indhalaay. xafladda arooska waxa lagu qabtay guri weyn oo qurux badan oo uu leeyahay nin indhoolo ahi, halka baadariga labada aroos isu guurinayay isaguna uu ka ahaa nin indhala. intaaba waxaa ka daran dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladdaas iyo sidoo kale xubnaha kooxdii musiga tumayay inay ahaayeen dhammaantood dad wada indhala. dhacdadani waxa ay ku taalaa dhiganaha loo yaqaano The Strangest Things in the World bogiisa 139, 149 iyo 195. qabiil dhan oo qof bidaar leh ama timcad aan laga soo helaynin. qof shisheeye ahi haddii si uun ay ugu suuro gasho inuu gaadho tuulooyinka ay degan yihiin qabiilka Kamayora ee reer Brazil oo uu dhex galo, ishiisu ma qaban doonto qof buuran ama qof cayiran. sidoo kale dadka da'da ahi tintooda hal tin oo cad kama soo qaban karo oo tintoodu waa madow dhuxuli ah. arrinka la yaabka lehi waxa uu yahay qabiilkan da'yarkooda iyo ciroolahooda inaanad kala saari karaynin oo qofka weyn coodhcoodh wejigiisa ku dhigay ma jiro. sidoo kale qofka da'da ah ee qabiilkan ka tirsan cududiisa iyo ciidamintiisa waxa uu kala mid yahay 20 jirkooda. culimada bulshada arrinka qabiilkani aad ayuu u soo jiitay. qaar aqoon-yahanada ka mid ahna waxa ay ku doodeen inay suurtagal tahay qabiilkani qofkooda duqooba inay dilaan oo ay ka takhalusaan sida qabaa'il kale oo cawaan ahi ay sameeyaan, balse waxaa caddaatay arrinkaas inaanay waxba ka jirin. waxaana loo badinayaa firfircoonidooda iyo dhallinyarnimadooda inay sabab u tahay howlgalkooda joogtada ah iyo cuntada ay cunaan ee dabiiciga ah. dilka ayaa u ahaa dawada hargabka. boqorrada qabiilka Shilook loo yaqaano ee reer Afrika waa la dili jiray haddii uu hargab ku dhaco. sababtuna waxay ahayd qabiilku waxa uu aaminsanaa caafimaadkoodu inuu xiriir la leeyahay caafimaadka boqorkooda. sidaa awgeed boqorkooda haddii uu hargab ku dhaco hore ayay ka dili jireen si caafimaadka qabiilka ay u badbaadiyaan. caadada qarniyo badan ayay kusoo dhaqmaayeen. dhammaan xubnaha hubqaadka ah ee qabiilka oo idil ayaa iska kaashan jiray dilka boqorka hargabku uu hayo si mas-uuliyadda dilku ay ugu dhex faafto bulshada oo dhan. cunista hilibka aadamaha. caadada cunista aadamuhu waa caado ku dhex faaftay bulsho badan oo cawaan ah oo daafaha adduunka ku kala filiqsan, gaar ahaan koonfurta Afrika, galbeedkeeda iyo bartankeeda. sidoo kale waxay ku faaftay Australia, Ameerikada Koonfureed iyo qaybo ka mid ah bulshooyinka Asia iyo meelo ka mid ah bariga Yurub. qaabka dadkaasi hilibka dadka ay u cunaan waxay u kala duwaneyd sida ay kala duwanaayeen bulshooyinka cawaanka ahi. bulshooyinka hilibka cuna waxaa ka mid ah qabiilka loo yaqaano Diara ee reer Australia. kaliya waxay cuni jireen hilibka qofka xigtada ah ee geeriyooda. waxa ay dejisteen nidaam qof walba ku hagaya qofka hilibkiisa uu cuni karo. hooyadu waxa ay cuni jirtay wiilkeeda geeriyooday, ubadkuna waxay cuni jireen hilibka waalidkood. xaaska saygeeda iyo walaalkeed mid waliba ka kale ayuu cuni jiray marka uu geeriyoodo. sidoo kale sayga walaashii iyo xaaskiisa mid waliba ta kale ayay cuni jirtay marka ay geeriyooto. xigtada kale sida adeerada, abtiyaasha, ubadka walaalka iyo awowyada waxa ay u sameeyeen nidaam gaar ah oo ay ku garanayaan qofka hilibkiisa ay cuni karaan marka uu geeriyoodo. halka bulshooyinka qaarkood dhaqankan ay samayn jireen kaliya xilliyada ay jiraan munaasabaadka diiniga ah. Jaynihii hore dadku waxay cuni jireen wadnaha dadka dilka lagu xukumay iyo beerkooda, dhiigoodana way cabbi jireen iyaga oo aaminsan cabitaankaasi inuu jirkooda awood u kordhinayo, caafimaadkoodana uu kor u qaadayo. sheekadan oo sii faahfaahsan waxaa laga helayaa dhiganaha loo yaqaano Gharaa'ib an-Nudum wat-Taqaalid wal-Caadaat mujalladka 7 safxadda 2. sidoo kale waxaa jira filim aan idinkula wadaagi doono lifaaqa hoose oo loo yaqaano Inverno oo laga matalay qabiil cawaan ah oo ku nool koonfurta Ameerika oo cunaya hilibka dadka. xabaashan maxaa ku sugan? xabaashan fircoonka loo yaqaano Tutankhamun waxaa ku sugan arrin cajiib ah. qof kasta oo xabaasha gala ama baadha wadka ayaa daba dhigta. markii ugu horeysay ee xabaashan la furay waxa galay laba nin oo la kala odhan jiray Colonel Dobry Harbert iyo
Evelyn White markuu gudaha u galay xabaashaba Herbert cabsi ayuu la jiray dib ayaan uga laabtay sanadkaas intii aanu dhiman ka hor ayuu geeriyooday Robert Herbert walaalkii oo lagu magacaabi jiray Lord Carnarvon markii uu galay xabaasha waxa uu dareemay dhabankiisa inay wax mudeen muddo yar oo kooban kadib ayaanu geeriyooday Evelyn White oo ahaa aqoonyahan ku takhasusay dabagalka ilbaxnimadii Masar ee hore xabaasha markii uu galay waxa uu ka soo baxay isaga oo qof kale ah wajigiisu waxa uu eekaa qof uu eriyanayo reer aakhireed aan la arkaynin isla sanadka gudihiisa ayuu qudha iska jaray dhambaalkii uu qoray ka hor intii aanu dhiman waxa uu ku qoray lacnadii ayaa ay haleeshay xukuumadda Masar dhacdada kadib waxay u wacday Sir Arthur Archibald Douglas Reed oo ka tirsanaa qamaamuurta ku takhasustay X-ray-ga si xabaasha uu X-ray ugu sawiro sanad gudihii ayuuna ku geeriyooday Professor Lavler oo ka tirsanaa jaamacadda McGill waxa uu ahaa aqoonyahankii ugu horreeyay ee reer Mareykan ah ee xabaasha baara balse nolol kagama bixin magaalada Al-Aqsa ee dalka Masar ku taala sidoo kale dad tiro badan oo odayaal iyo da'yar isugu jira oo xabaasha booqday qof kama bixin dadkii caanka ahaa ee xabaasha galay qof aan ka shalayni kuma jirin xabaasha waxa booqday 7 ka mid ah qoraayadii ugu tunka weynaa Faransiiska 6 ka mid ah waxa ay geeriyoodeen 2 sanadood gudahood markii qalfoofta wajiga Tutankhamun marada laga qaaday dhabankiisa waxa lagu arkay nabar ku yaala waana isla bartii uu nabarka kaga yaalay dhabanka Lord Carnarvon sidoo kale xabaasha waxa booqday Wolf Guel isla sanadka gudihiisa ayuuna geeriyooday halka Happy Gold isaga oo xanuunsanaya uu codsaday xabaasha in la soo tuso markii la geeyayna gudaheeda ayuu ku dhintay mana jiro qof xabaasha booqday haba yaraatee oo balaayo aanay haleelin qoraagu xogtan waxa uu ka soo xigtay dhiganaha loo yaqaano asraarun wa cujub tirakoobi cajiiba bulshada ugu sonkor cunista badan adduunka Soomaalida ayaanu haystay balse ma aha ee waa bulshada dalka Bulgaria bulshada ugu hilib cunka badan uguna xansha cunista badani waa bulshada Mareykanka bulshada ugu kafee cabista badani waa bulshada Finland bulshada ugu badan ee looska cuntaana waa bulshada dalka Masar adduunka ninkii ugu timaha dheeraa waxa uu ahaa ninkii Hindiga ahaa ee loo yaqaanay Suwas Bandar Sanari oo dhererka timihiisu ay gaarayeen 792 sentimitir sanadkii 1949 7 sanadood may fadhiisanin duuqada loo yaqaanay de Longueville oo ka tirsanay qoyska boqortooyada Faransiiska oo dhalatay 1619 dhimatayna 1679 waxay aad uga murugootay geerida wiilkeedu uu ku geeriyooday mid ka mid ah dagaalada dabadeed waxa ay ku dhaaratay inta nolosheeda ka hadhay inaanay fadhiisanin 7 sanadood oo dambe oo ay sii noolayd maalinka oo dhan way taagnaan jirtay habeenkiina dhulka ayay seexan jirtay iyadoo aanay jirin gogol ka xigta waxa aanay geeriyootay iyada oo taagan dhiganaha xaqaa'iqun aqrabu min al-khayaal ay sheekadani ku taala buga 8 qayb kamid ah siraha boqoradaha Elizabeth tii koobaad oo ahayd boqorada Ingiriiska waxay caan ku ahayd jacaylka dharka ay jeceshahay kolkii ay geeriyootay kadib gurigeeda waxa laga helay wax ka badan 2000 oo maro ah Catherine tii weyneyd oo ahayd boqorada Ingiriiska markay doonayso inay qosasho ama ay farxad dareento adoonteeda ayay fari jirtay lugaha inay ka hadanteeyaan Modshetayaan waxay shaqaale ka ahayd qasriga boqorka China muddo kadibna waxa ay noqotay boqorada Chinaha kadib markii ay dishay walaasheed walaalkeed hooyadeed iyo boqorka xaaskii saddexaad ee Napoleon Bonaparte kabaha ay soo gadato hal mar ka badan may xiran jirin si kasta oo kabahaasi ay qaali u yihiin ama oo ahayd boqorada Ruushka mid ka mid ah amiirada oo ay ciqaabaysay waxay amar ku siisay sida digaagadaha inuu qayliyo waxay u keentay qafas horteeda ayaana soo dhigtay gudaha qafaska waxay ku riday beed ama ukun kadib waxay qasabka ka dhigtay qafaska inuu galo beedka uu ku fadhiisto sida digaagadahana uu u qayliyo dhiganaha qaraa'ibul caalam ayay ku soo aroortay xogtani mujalladka afraad buga 205 ilaa 208